السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي إذا قيمها أي قدرين تي شرفت مدني هودا أن كودا حديدنا وحوق بان دي سلامي ما أنت ميجي بان كوسون نوضي ماشي مقالة أنت جنانشري قرق أنت جنانشري هو كاسوك هتسان يا أركتان الكارو كيا لا درتان دحديدا ما فهمتي waxaan rabaa inaan laba kalmadood inaan iraahdo oo ah haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed luqadeena waa inaan aad uga taxadirnaa because luqadda Soomaaligu waa luqad ay ka qayb tahay dhaqamo fara badan oo qalooca mujtamaca qayb kamid ah aflagaada ku ah bulshada qayb kamid ah dhaleecayn ku ah dumarka ay ku ah waxa laga yaabaa marka qof kasta Soomaali markuu hadlayo waa inuu fikiraa intaan uu hadalo أنا قوميتها كلنا ويسمين كمان لكن Soomaali haddii nahay inagu waa cunsuriyad baa ka buuxda luqadeen qof aad soo nasacay qowmiyadan badacaysa ama jinsi kamid ah dadka dhacaysa nin baad soo nasacay waxa laga yaabaa in aad u iscaydo oo dumarka caydo oo hooyada caydo naagi how waxa laga sii naaga u hadlaya waxa sii naaga u tirsanaya waxa la kamid ah maaragtay inaad caydo adoo ilma habaaraya ama maagaya ilma dhashay ama qof wax iskugu sameeyay adoo maagaya laga yaabaa inaad bulshada qayb dhan oo kamid ah aflagaadeyso oo tiraahdo maaragtay inaad magacyada foosha xun dadka qaar lagu liidayo inay maaragtay si ay maaragtay kaaga soo baxaan aan qorsheysnayn tusaale ahaan inaad qof goblan ku caydo kale yaa sidii habar goblama maxay igu caaysaa ma igu sidii habar goblana ya goblanimadu waxa weeyaan waa qadar kamid ah qadaraha Ilaahay maaragtay insaanka u go'aamiyay ku qasbay qofna ma jecla inuu awlaad la'aan noolaado laakiin lagama yaabo inaad saa uga fikiraysid marka hadalka leedahay imise hooyo ayaa Soomaaliyeed baa meel walba u maray inay awlaad dhalaan oo lacag badan kaga baxday oo kharash badan kaga baxay oo kari waayay ya oo magacana kula wada laana goblan waa cidaan awlaad lahayn moogta haduu cay yahay wuxuu cay ku yahay ummadda intii aanu badalin oo dhan ma fahantay marka khayr ilaahay haydin siiya ka fiirsada hadallada aad oranaysaan oo naagaha loo ogaayo kasnaageed iyo gabooyahan la aflagaadeynaya qabiilkan dhan ee sharafta badan ee sheekha leh shariifka leh adiga oo qof ay soo taagantiin isku xanaaqdeen aad maaragtay soo qaadanayso aad midgaan yahay yibir yahay waa qabiil magacyadood ya waa qabaa'il inala walaalaheena oo inaga mid ah oo inagu dhex nool oo inaga walaalaheena wadankii dadkii diintii iyo dalka wayna la leh marka waxa fiican ma taqaanaa dadka Soomaalida inay adigoon kamid ahayn ba dadka cunsuriyad way hadhaysan haddana inaad si sahlan ya aad uga qayb qaadataa laga yaabaa marka taxadir